السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن سومالي ميلو با جوكتان سيتهين مفيعنتهين عافماتكين كورمة. عشر كينا مانتا وحكو سابسن يهي مسكح دينا وآد إنو قوين أما مهم إنو قواه. عشر كينا بلابنا بسم الله الرحمن الرحيم وتببرك مسكح ذا brain train تببرك مسكح ذا محين مسكح ذا تببريناه أما سيتا مسكح ذا maadaama in door dagaalo iyo waxyaalo xun ku soo jirnay maskaxda waxyaalahaas oo dhan waxay gaarsiinaysaa dhaawac iyadoo dhaawaca maskaxda gaarayna uu hadhowna uu dhibaato gaarsiinayo jirka leeno jirka waxa laga xukumaa maskaxda casharkeena bilaabana bismillaahir rahmaanir rahiim. Brain is the most complex part in the human body which controls through memory, emotional, touch, vision, breathing, temperature, hunger, and every process that regulates the body. This three-bound organ is the seat of the intelligence, interpreter of the sense, initiator of body movement, and controller of the behavior. The brain is the most complex part of the human body which controls thoughts, memory, emotional, touch, vision, breathing, temperature, hunger, and every process that regulated the body. This three-bound organ is the seat of the intelligence, interpreter of the senses, initiator of the body movement, and controller of the behavior. هدينو شرحنا مسكحي محاطة مسكحدو وقيبتا ugu adag jirka dadka leena waa qaybta ugu weyn oo jirkeena dhan gacanta ku haysa waxa jirkeena wuxuu ka bilowdaa madax maskaxdana madaxay ku jirtaa subhanallah ilaahayna wuxuu inoogu xaafiday jumjumad ama wax adag ama dabool adag buu inoogu xafdiya taasoo ku tusaysa muhiimadda ay leedahay maskaxdu waa meesha ama qaybta ugu adag jirka bani aadanka which controls taasoo xukunta thoughts waxbarashada memory xasuusta ama barashada ma wax barasho kaliya barasho qofku wax walba la baranayo markaan ilmanaha ilaa aan weynaano mar walba wax cusub aan baranaa taas xagee ku shaqo leh maskaxda ku shaqo leh memory xusuusta emotional dareenka touch taabasho vision araga breathing neefsasho temperature heerkulka xataa markaan qadhano xagee ka imanaya amarka maskaxda bal xoogay leedahay maskaxda day temperature heerkulka hunger gaajada and every process hab walba that regulates kaasoo nidaamiya the body jirkeena nidaamiya this three-bound saddexdan rodol xubinta saddexdan rodol ah is the seat waa kursiga ama fadhiga of intelligence garaadka interpreter tarjumaanka of the senses dareenkeena the initiator of body kala qaybiyaha movement dhaqdhaqaaqa and the controller iyo xukumaha of the behavior habdhaqankeena hanir maskaxda waa qaybta ugu adag oo jirka dadka ah taasoo xukunta barasho xasuus dareen taabasho aragti neefsasho heerkul gaajo hab walba oo jirkeena shaqo ku leh dhuunta laga bilaabo indhaha ka koray ka bilow indhaha sanka dhagaha kulli controlku waxay ka qaataan maskaxda gacanteena markay dhaqaaqayso maskaxday ka soo qaadanaysa amar markaynu gaajona qabato
maskaxda sheegaysa jirka u sheegaysa inay gaajan hayso markaasuu qofkii gaajo uu kacaa inuu wax cuno markaan xanuunsanahay maskaxda water regulates the temperature oo ah heerkulka jirkeena gaajada hab walba waxaa nidaaminaya jirka saddexdaa rodol xubinta ah يعني 3 rodol waa kiilo iyo 350 450 waa pound-ka 2 pound waa 900 waa 3 pound waa 1350 gram ama kiilo beeqoto waa kiilo iyo barka yar size-ka ay maskaxdu tahay waay waxayna ku fadhidaa ama waxay tahay fadhiga garaadka tarjumaanka dareenkeena yani caqligeena waa taan wax ku fahamno aan ka tarjaano maxay tahay markaan fahamno amarka ay qaadato waxay u badashaa gaajo kuleel qabow dhaxan dhibaato neefsasho aragti hasa laga wadaa kursigaas ama fadhigaas wuxuu u bedelaa haday noqoto garaad wuxuuna u tarjumaa يعني wuxuu u bedelaa maskaxdii amarka siinaysaa organkaas ama xubintaas waxay u bedelaysaa shaqo of the senses dareenkaas oo ah initiator of the body movement dhaqdhaqaaqiisa and controller the xukumaha the behavior hab dhaqankeena marka maskaxdeena waxay u baahan tahay inaan xoog weyn gelino leeno sidaasay u tahay muhiimad inagu hadda kala baranayno sida exercise loo sameeyo si loo neefsado waarta qofka markuu naxoo kaleetii waxaa la dhahaa isdeji neef qaado 1 2 3 akhri quraan akhriso weysayso marka xanaaqdid waxyaalahaas oo dhan waxaa keenay controlka maskaxdii qofka markuu naxo waarta indhahaasi u soo baxaan حمد إنها إن قلق كسو بحايا وإن حدنتي مركي قاعدته بس كحدا بي أكشن كسي محي أورجيسا وحي أورجيسا إنديه نصباح تاسو كنتو سيستقف كينو عبسنايو تاسو ترجمانك وترجرك وترجمايو دارين هدين نقطة قفكي مركي لوات سو غارتو كليتو أما جيرو كنت ماذا إلهو نحرستو حيدين تو دانا أما قفك وجرو كنت ماذا كليتو قفكو حدريما إنو أويو إنو كحانو صدا إنو حماضو iyadoo isla markiina controlisa dhaqdhaqaaqa jirkeena marka muhiimadaas ayay maskaxdu u leedahay jirkeena inagoo baranayna casharka soo xiga insha Allah sida loo dejiyo maskaxda sida maskaxda loo kobciyo sida maskaxda dhibaatooyinka looga hortago marka mar walba ku dadaala habeenkii shayga u dambeeyay intaada seexan ka hor inaanu noqon war naxdin leh farxad ku seexdi maskaxdaada inuu habeenkii oo dhan intay shaqeynayso wanaagaas shaygi ugu dambeeyad ku seexisay ku jiraysa habeenkii oo dhan say maalinta dambeeyta wax fiican ugu soo kacdada hadii Ilaahay yiraahdo marka u dambaysa war xun iyo hadaawan war xun ha maqal hatta hadaan maqashid laba ragcad ku kacud bilayso iyo noqon shayga u dambeeya maskaxdaada gala taasoo ku tusaysa ahamiyadda ay leedahay maskaxdeena waxay rajeynaa dhammaantiin maskax caafimaad qabta oo maskaxatii ugu fiicneed ah haduu Ilaahay yiraahdo khayr badan ay rajeynaa dhammaantiin anagoo dhameystiran doona maskaxda iyo faa'iidooyinka badan ay noo leedahay maskax wanaagsan fakar wanaagsan iyo caafimaad wanaagsan ay rajeynaa dhammaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh